gudoomiyaha jaamacadda Professor Salaama Axmed Guuleed ee maanta xilka wareejinaya iyo gudoomiyaha cusub ee xilka lagu wareejinayo Dr. Maxamed Muuse Jibriil baynu u fadhinaa maanta anigu in yar uun afar qodob ma ku soo koobaya waa afar qodob afartaa qodob oo markhaati furaya ama shahaado u noqonaya Professor Salaam inuu yahay ama aha qofkii ugu habboonaa ee bulshada Boorama ama bulshada Maanta Soomaaliland baan idhaahday ay u dooratay inuu taabageliyo ama uu dhiso jaamacadaasi waqtigii jaamacadda la bilaabayay qofkii ugu habboonaa oo ilaahayna ku waafajiyay bulshada inay isaga u soo qaadaan sababaha awgood Salaam horta waa nin khibrad badan lahaa khibradiisuna ka sheekay karmay waqtiga ay ugu gaabane secondary-ga Xamuud buu kaga bilaabay director of secondary school buu noqday jaamacaddii ugu weynayd ee la foolabo madax ka noqday wuxuu ka tago maxaan ku ilaa foreign affairs school shaqeeyay 110 wafdi iyo dawladda hore dibadda u raacay dawladdu markay baabaaday wuxuu tagay kilinka maanta Soomaaliya wuxuu ahaa dadkii roolka way ka qaatay dhismaha waliba hormood buu ka ahaa dhismaha gobolka isagoo khibrada wata ayuu Salaam inoo yimid waxa uu raaca khibradaasi shakhsiyadiisa waxyaalo Ilaahay hiba u siiyay oo waqtigaasi ay u baahnay jaamacadana cid kale ma kicin karteen ama cid la mid ah mooyaane maxaa in sifooyinkaasi aftahaama u dhashay iyo bayaan in محل سحر البيان إن في البيان لسحر وقت الله بهنا بيمد وحكوا لي تيري أبى شيء أنتي خلاص وحولي وحول دار نفورت أما كوميت موضوع عن إنجليز قالوا هذا طلقات هانتي دورس أنت وأنا وحان شيء ستة قدم بنكسر شيء دونا سامبلا 1999 markay jaamacadu laga sanado jirtay ee la isku hayay meeshan dadka inta badan bulshada jaamacada lagu qoslayay ilaa war waxan wax suuroobaya ma aha waa duruufta ay ku jirtay baaba in la soo hadal qaado jaamacad dadku waa nasan isbaa waxan wax suuroobaya ma aha fikradu way timid laakiin sidee loo hirgelinaya ayuu mission u soo baxay Abu Dhabi baan markaa ka shaqeynay oo joogay halkaas aan ku qaabilnay waxaan u soo maxaan ku dhahdaa u qaban bulshadii Somaliland oo markaa la war waxan waxba kama jiraan ayaan idhi war waxa ay professorkii looga dhigay maanta war isku soo ururinay laba shir baan u qabanay shir Abu Dhabi baan ku qabanay shirna magaalada Shaariqa la yiraahdo waa community-ga bajaaladii Somaliland oo dhan Professor Salaam markaas tiifi ka muuqato oo tiiftii wad kaba wad haysatay ka muuqato markaa cawlan isaguba hay'adku qaar badan waxay yiraahdeen war bal ninkan jaamacad baan ka warramayaa leh aan dhageysanay meesha u yimaadeen Ilaahay wuu maarta nagu asuray wax buu sii daayay Salaam waad garanaysaan khibradii horta wadankii buu ka warramay sidoo u baabay deedna dhalinyaradii buu ka warramay sida dhalinyartii yaa u rajalaada halkaas uu mariyay goobta waxa joogay niman waaweyn oo Somaliland tarisoo waxa ka sii garanay Cabdullaahi Kongo Cornel Miya General waxa garan maayay Cabdullaahi Kongo waa ragii khilaafkii berigii 61 Soomaaliyeed khilaafka ku jiray markii tamana safiraayo Abubakar Xaaji Faarax baan maleeyay raggan ka sii xasuusana waxaan anu shucuurtii baan maalintaaydu tusaya sida la noqday horta saas baa loo eegay dadka waxaad moodaa inay iddiila gashay farxad iyo muraaqood kol kaliya ay dadku baraarugeen raja gashay Cabdullaahi Kongo kaco wuxuu yiri Salaam warka aad noo sheegtay maanta wadankii ka keentay 20 sanadood ma maqal buu yiri warka fiican mana rumaysnayn buu yiri jaamacada inay ka suuroobayso Somaliland laakiin khibradaada iyo aqoonta aad meesha ka muujisay ba maanta iyo xaqiijiyay inay waxaasi suuroobayaan shucuurtii dadkii markii laga kala dareeray laha waa nasanaysa waxan ma suuroobayaan wallahi waa suuragal
maratu Saleebaan ninka khibrada iyo aqoonta leh meesha joogo halkii baa sacabka laga tumo jaaleeti halkii bay maanta jaamacadda inay wax u soo tarta halkii bay ka bilowday ka soo bood anigu waan mid markaa waan shaqaynay waan mid aniga dadkii wuxuu ahaa aniga ay soo jeeta aniga markaa u qalqaalsaday inaan Yurub tago oo tigidhku way go'naa ayaa ku qancay wallahi inta dalka tagi lahayd amba de markii hore markuu meesna baan Saleebaan haduu wado وانا نقانو رنتا aniga maxalin buu ahaa la foolay ku ahaa wallahi meesha taariikh baa ka socotay taariikhda ka qayb gal sidii baan ku yimid wuxuu yaro lacag la ii soo dhaway la 8 kun iyo waxay muu yaray jaamacadda uge in si dadka sar idiga sheekaynaya waxa uu yimid iyadoo macallimiintii 6 bilood aanay lacag qaadanin uu Saleebaan warwarsan yahay ayuunba ilaahay keenayo waan wada fadhiisan war intan sidayna dhaa library meel halkan aan wax laga dhisay waa la doonay waxba looma hayo bulshadana ma la weeyana kala daaleen oo markaa ka yar caajistay annagoo intii sidii loo qaybin la garan la macallimiintuna ay leeyihiin waan xoodxoodnay inta yar loo qaybay isaguna leeyahay war meel library inuu bar ku dhisay yar suga wax kale ay noo iman doonee ayaa bal ismada ilaahay maxamed xaaji ibraahim oo fisid ku yimid oo magaalada jooga ayuu baa leeyahay madaxweynaha baa soo socdo jaamacadda ay maraya محمد حاج إبراهيم مركو سوقلي أيام جامعة سيدا ومرينا يو هكي لا بريرجي ما مرنا يو بروفيسور كإلهي وحكومة نايسته هذا الكينو يعني صدق سو فكرة هذا الكينو هيلي أوجي هاي مناسبة يا وقتها وحيلون مدح وإلى أنت لا بريرو تسيها كي يربان ماتا ينتون إلينا كنت لا بريرو لعبا نولانا وأي مساوم بيقولون وان كسر فكرة ما ولا فرق كلام بيقولون طبعا كونوا بيقولون أي صوت ولا بيقولون ما كان كنا نقدر كوريجي متحولين كوريجي إلى كوريجي كسر تقول لما قالوا هدالي وحبا ما يلاهينا أنا راعي وقال لكوريو متحولين وتبرك بانانية وحبا ما يشيلين waxa yar ku maamulaya ummada shantadeer buu ku sitay shantadeebu gacanta kale 10kii ku ka soo saaray maalintaasi waxa shucuurtii baan tusayaa Saleebaan wuxuu eekaa nin caruurtiisii qatanayd 6 bilood oo raashin loo keenay farxad shucuurtii baan aad u garanaya kabood waxaan tagnay Nairobi programka diploma program la yiraahdo taariikh laga dhisay isaga ka hadli doonee taariikhan ugu badan ee jaamacadda laga dhisay oo European Commonwealth ku bixinayeen baa la doonayay in la nagu qanciyo in meesha wax ka socon karaan iyo in kale programkana waxa la yiraahdaa Amuud Centerka looga dhigo Puntland iyo Soomaaliya baa cadeedeeda macallimiin la soo saaro waxa shiki badan kaga jira inuu programkani soconayo waxa yiraahdaa warba noogu kaalay maanta Nairobi macallimiinta ka dhigta kulliyada iyo maanta adiguba Nairobi noogu kaalay Nairobi baanu tagnay hodeel weyn baa la dhisay cashar baa la dhisay ilaa 12 expert oo cadaana ayaa meeshii ma soo fadhiistay waa dagaal meesho annaguna waxaanu aqoon lahayn baanu la diyaarnahay iyaguna waxay aqoonay waxay leeyihiin baalkan ma soconay bal nimanka baarbaadha Saleebaan baa hadlay waa 22 Saleebaan ilaahay wuxuu ku manaystay waxaad ogtiin horta kullayba waxa weey aftahamada inta badan af Soomaaliga u yaqaanaan inuu ka aftahaman yahay sida af Soomaaliga ugu hadlo Ingiriiskana ugu hadlaa nimankii kaaladii markuu bilaabay ay sidaas u eegaan ay su'aal ku qaraaceen oo isna ku qarwaa dagaal un baa rasaas la isku ridayo annana waa inta yadi waa haysanaa waxaan leenahay haduu jiro maanta wuu naga furtay nimankii markii hore yaabsanay waxaan socon maayana walaha horta qosol iyo farxad iyo maanta yes indeed way soconaysaa waxaan waa so wonderful we have never seen you qof la kulamidaba ma naarag hadaad aad u joogto way soconaysaa waan ku dheeraaday soo koobay wax badan bay igu jiray laakiin waa soo koobaya waxa weeye wanayo xaq amaanada waxa weeye
saleeban de meesha wuxuu haysay inuu de beebigiisii amba caruurtiisii uu haysta waxaan xasuusan kaleedii soo qaadaya waa laba midho kaliya iga raali haada waa goobiyana cajiiba hantida horta waxa ugu qaalisan maarta hantida maxaan ku dhahay jaamacadda dhulka maxaan ku dhahay 17kii ayuu maalin wuxuu yidhi axmedow haddaan maarta hantida la ilaalin dayrka maxaan ku dhahay jaamacadda kambaskeyga la ilaalin mustaqbalku wuu baaba'aya wuxuu soo ururiyay 17 oday oo cayaantii magaalada xaaji miisaan iyo way wada jooga in badan baa joogtay in badan way waxaan ka soo qaadanayaa isaga ka warramay doonee buurtaasaan kaga bilownay halkaas la dhaqay faayilka buurta kala la maro odayaashii buu Saleebaan horboodaya taaruga jeeda waxa way shucuurta maanta ku jirtay odayaasha 5 talaabo amba 10 talaabo kolba ka go'o xamaadaysay uu maqan yahayba wuxuu leeyahay halkan ma ilaa ingiriiski arday buu kaay uu joogo wada garanay wuxuu leeyahay halkan uu maraa kolba ka go'o Saleebaan uu soo noqoleeyahay odayaashii qaar way jajabeen baan u malaynayaa buurihii anu dadkii xagga dambe soo socday gaari waay baan ahaa dad badan oo odayaasha soo raacay leeyahay waa waxaan u jagooyin buu ka dhiganaya uu nawaalaya ilaahiyana way jireen waxaan xasuustaa shucuurtii maalinta aanu waxaan ku mathilay nin beertiisii loo soo dhigtay oo beertiisii ku mitidaya maarta meesha ayaanu qaatay yani xamaasadda ku jirta xagga hanti dhowrinta kale sida taasaa ku soo koobaya taa uu sheegay diiriya Saleebaan waxba kama dhaqan waa run dad badan baa haysta inuu lacagta oo isagoo gacanta ku haysto jaamacaddu system bay leedahay 3 qof baa wax saxiixa isaguna saxiixa kuma jiro oo aanu aan kamid baa wax saxiixa midna mid ma dhaafi karo hantida markuu maarta mishanka u baxaya amba wafti u baxaya kunaanu siinaa kuna xadidan baanu siinaa hargeysa markuu tagay kuna xadidan buu leeyahay Nairobi iyo wadanada kale kuna xadidan buu leeyahay waxaan idiga qoslinayaa baraw Nairobi tagay ay jaamacado dhan isku yimid baa inay saaxiibahayn oo xogay lacag ku sitaa isaguna xogay yar oo kuna yar buu sitaa isna waxa uu ku sitaa mashamtada ay seera xasadeen iyo warta imsaad qaadata wala seera xasada wixii kala wuxuu yidhi waa imsaad qaadata waa maxay tawa kolba intaan doona anigu meliye kolba intaan doona ayaa qaata marka horta sidaas oo hanti ka ah waxaan ogahay inaanu inuu mishaarkiisa xitaa uu ku bixiyo ardayga liite ee faqiira ee u soo cawda ayuu ku bixiyaa inuu ka bixiyo mishaarkiisa markaan eegaan aalsiya waxa ka soo hadha wax yar baa ka soo hadha weligii Saleebaan ma odhanin inaan firii ii siiya amba adeera u ahaado amba qaraabadiisa ahaado weligii ma odhan marbay lix reer guuleeda ayaa ku jira oo ardaydaasa wallaahi naanu ninna odhan maarta iga bixiya annana maanaan garanay waayo annaga lafta iyadu nagu beero annaga iska bixinatee marka sidaasuu ku ahaa Saleebaan nin u soo taagan meesha oo runtii meeshana wax ka dhigo maxamed muuse u soo noqonaya maxamed muuse waxaan ku faraxsanahay maanta waxa ii farxada inaan xilka u kala wareejiyo macallinkayga iyo ardaygayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Dr. Maxamed Muuse maaha ninku cusub maaha waxa weeye waa nin waayaraga iskuulka wuxuu ka bilaabay Xamuudi secondary buu ka bilaabay maamule iskuul saru soo noqday inta soo koobaya wuxuu soo noqday maxaa ku idhaahday dean amba hormoodka kulliyadda markuu digriga halka ka qaatay vice president buu soo qaatay intii uu joogay wax badan buu jaamacadda ka bedelay wax badan waan ka fiilahaynaa xilka ku asturay annana diyaar baan inaan la shaqeyn si Saleebaan baa ula shaqeynayna yaan ula shaqeynaa ta ugu dambaysa anaga 1 minute iska hadlaya dad badan ba waxay isweydiinayaan maadaama boqor ugu soo horeeyay meesha 22 sanadoodna ula shaqeynaya professor Salmaan gudoomiye ku xigeenaha maxaa maanta uu qaban waayay runtii aniga ka codsaday maanta inaanan qabanin
sababtuna waxa weeye dee intaas leebaan cararayo ordaya aanba waan daba ordayona waan xiiqay baytariyadii baa iga dhammaaday markaa waxaan idhi arsalaacna baan idhi wixii xogay iga sii dambe adiga kulley waanigii macallinka ku ahaa يا دكتور محمد نيا إنان عدلة كجت تجينا والسلام عليكم ورحمة الله.